waa taxanihii kormarka buugta iskaa u samee ee maktabadda waryaa. waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah cabdiraxmaan dool. maktabadda waryaa waxay ururisaa dib u habaysaa daabacdaana buugta iyo qoraalladii hore ee taariikhda soomaalida iyo guud ahaan geeska afrikada bari. haddaba qormooyinkaas ayaan si kooban marba mid u dul istaagnaa annagoo eegayna macnaha ay xambaarsan yihiin. maanta waxaan taanaha ku soo qaadanaynaa qoraagii weynaa ee mudane ama Sir Richard Francis Burton iyo buuggiisii First Footsteps in East Africa or The Exploration of Harar ama soo cagadhigashadii ugu horreysay ee bariga Afrika ama sahamintii Harar. haddaba aan gudagallo. Sir Richard Francis Burton wuxuu ahaa sahamiye Ingiriis ah, qoraa, aqoon-yahan, sirdoon iyo askari ka tirsan ciidamadii boqortooyada Ingiriiska ee shirkadda bariga Hindiya. waxa uu caan ku ahaa safaradii iyo sahmintii uu ku tegay Aasiya, Afrika iyo Ameerikada waqooyi iyo koonfureed, iyo sidoo kale aqoontiisii sarreysay ee luuqadaha iyo dhaqamada aadamaha. marka loo haltiriyo wuxuu ku hadli jiray 22 luuqadood. Burton waxqabadkii uu ku caanbaxay waxaa ka mid ah safarkii diiwaanka taariikhda u galay ee uu qarsoodida ku galay Maka iyo Madiina isagoo iska dhigaya baayac mushtar carab ah, iyo tarjumaadiisii buugga Alfa Layl wa Layl iyo buugaa kale oo hadalhayn badan dhaliyey, iyo socdaalkiisii uu la galay sahmiye John Hanning Speke oo labadooda ka dhigay dadkii ugu horreeyey ee reer Yurub ah ee booqda harooyinka waaweyn ee Afrika iyagoo raadinaya isha webiga Niilka. haddaba soo cagadhigashadii ugu horreysay ee Afrikada bari ama sahamintii Harar. kadib markii uu Richard Burton Maka ka kicitimay waxa uu ku noqday badda cas iyo Masar oo uu nasasho yar kadib ka sii aaday ilaa iyo Bombay. shirkadda bariga Hindiya ama British East India Company waxay muddo dheer rabtay inay sahamiso dhulka Soomaalida iyo Abyssinia sababtoo ah khayraadka aan la soo koobi karin ee deegaanka iyo dekedda Berbera oo hoos iman jirtay boqortooyada Harar oo gobolka ugu weynayd kana wanaagsanayd tan Cadan. hase yeeshee siduu u dhigay hadalka, geyga Soomaalidu wuxuu ahaa meel lama galaan ah oo ay degan tahay qowmiyadda ugu khatarta badani, sidaa awgeedna uuna jirin qof cad oo ku guulaystay inuu abidkii galo dalka oo dhan. si wax looga qabto wuxuu helay fasax uu ku aado halkaas shakhsiyan. shirkaddu waxay u ogolaatay inuu helo mushaarkiisa, laakiin lama siin wax ilaalo dowladeed ah. kadib wuxuu dalbaday inay weheliyaan 3 sarkaal oo ay isla shaqaynayeen si loo baadho goobaha kala duwan ee xeebaha Soomaaliya. bishii Maarso ee 1854 waxay u safreen Cadan si ay ugu diyaargaroobaan socdaalka Somaliland oo ay maalgelisay ururka bulshada juquraafiga ee boqortooyada Ingiriisku, isaga iyo xubnaha weheliya oo kala ahaa G.E. Hearn, Lieutenant William Stroyan iyo Lieutenant ama sahmiye John Hanning Speke. dhagayste, waxaa intaa nagaga eg qaybtii koobaad ee kormarka buugga soo cagadhigashadii ugu horreysay ee Afrikada bari ama sahamintii Harar iyo taariikhda qoraa Richard Burton oo aan qaybaha dambe ku soo qaadan doono socdaalkiisii geyga Soomaalida oo tafatiran iyo safarkiisii dambe ee harooyinka Afrika. waa taxanihii kormarka buugta iskaa u samee ee maktabadda waryaa. waxaana idiin soo tabinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Dool.
waxaad buuggan iyo taariikh kale oo badan ka heli kartaa maktabadda waryaa. fadlan booqo waryabooks.com.